هذا الرحمن الرحيم. أول الإلهي ما هذا الكلام مرة وأكون مهد عليا مقعيه وأنا ودون بدل كامل حسي. إلهي أرتو وحنا قبر يا ومد الصومالية من نمائي يمارك نبض يبرواق إلهي نصيه إيمان كان على كسو عليه. أنت أكيد مركان على كذا أوصل الله. هذا الواحد نعيا وواحد نصيب تراء ومد الصومالية كل حي. ودلك يجي دتك يجي دينك يجي بابي dad aan isqabin oo isku diray oo midba mid lagu dirayo weeye ciidamadu dalkooda daacad uma aha madaxdu dalkooda daacad uma aha shacabka dalkooda daacad uma aha culimadu dalkooda daacad uma aha nin walba uu doonayo inuu asagu dirag xalool buuxda uu doonayo iyo dan gaara cadowna dabada ka wado lagu maalgelinayo si dalkiisa u burburin lahaa sidii jamcadihii SLM iyo USC iyo SSPF dagaalkii dawladii Maxamed Siyaad Barre lagu burburinayay ee dawladaha ay caalamka islaam gaal iyo islaamba maalgelinayeen oo taangiga iyo hubka iyo lacagta loogu dhiibayay dalkiina burburiya sidoo kale u baahatana socota ee ma ahan wax maaragtay meel dheer ka imaanaya wax qarxinaya wax dilaya wax burburinaya kulli waa inaga waxa farsamada iyo waxa dhan fulinaya waa inaga laakiin maskaxda iyo caqligu inaga maaha waa dad kaleeto waa shisheeye waxa loo jeedaa waa dalkan nimcadiisa iyo barwaaqadiisa in la qaato dadkana la baabi'iyo la dabar jaro waxa laga duulayaa 50 sano ama 100 sano dambe dadkani meel sida uu ku dambeynaya laga fikiraya si marka dadka loo baabi'iyo oo dalkan loo qaataa laga fikiraya Soomaalina caqligaas ma hayso waxay ku garan lahayd ma hayso kan al-shabaab ka dhimanaya waa Soomaali kan ciidanka dhimanaya waa Soomaali kan shacabka dhimanaya waa Soomaali iskale marka dalkii Soomaalida yaa Soomaali ahayn yaa islaam lama kala garanayo marka Ilaahay waxa ka baryaa ummadan Ilaahay inuu iimaanka ku soo celiyo inuu walaalnimadeeda iyo waa jacaylkeeda isgeliyo taasaan Ilaahay uga baryaa alle dhibaatana haysato weeye waa midaan ka danqanayo waa mid habeen iyo maalinba caroosh ila wareegto wararka qaarkood salaada Ilaahay markaa tukiyo haday igu soo dhacaan waxa dhacaya u fil waa tahwiya salaada inaan toban tukado iyo inaan laba tukado kala karto Ilaahay igu waxa weeye dadkayga iyo dalkayga iyo diintayda wax lagu sameeyo Ilaahay waxa ku bariyaa marka ummadan in Ilaahay Soomaalinimadii ku soo celiyo wada dhalashadii Ilaahay tuso islaamnimada Ilaahay tuso iimaanka alle ku soo celiyo ma garataale waan gartay bal sidee looga gudbi karaa marxaladaha adag ee aad ka dhawaajisay waxa looga gudbi karaa adeer midnimo looga gudbi karaa haddii la midoobo oo shacabka iyo xukuumaddu midoobaan oo gacanta la isqabsado oo in la leeyahay dalkan waxa ka bacaya inuu anaga yahay la ogaado oo shakhsi walba uusan dantiisa eegin danta guud eego taasaa lagaga bixi karaa laakiin inta aanu sayna dangaara ee aanan dan gudan kalahay oo nin kasta oo ama shacab ama xukuumad u shaqeeya dawladda u shaqeeya ama shacab ama mucaarada ama waxa uu leeyahay maanta maxaa ku noolaataa uu leeyahay wax wanaag ma gaareen tilaabo horumarna ma gaareen dadkan iyo dalkan waa faaba cadowgaana u soo dhiila dhaansaday macallintiisa la iska guran baddiisa la iska guran tubiyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa iyana waxa ay ka dhawaajiyeen inay soo faarujinayaan furimaha hore deegaanada gobolka Shabeellada Hoose geesti kale wasiir ka tirsan Puntland iyagu waxay booqdeen ciidamo gadoodsan oo gobolka Bari qeyb ka mid ah ku sugan bal gadoodka ciidamada ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo Barigaba maxaa xilligan isku soo beegaya waxa isku soo beegaya dhibaatada taagan iyo dadka ka shaqeynaya isku soo beegaya dad baa ka shaqeynaya in dhibaatada loo geysto in la ceebeeyo dawladda in la imtixaabiyo dawladda in laga hortago wanaag kasta oo dadkan u soo ifaya iyo dad kasta oo ifaya in laga hortago taasa isku soo beegaysa taasaana sameynaysa adeer Soomaaliduna waxay ku maamaadaa dhagax meel uu ku dhacaa dhawaaqna meel buu ku dhacaa rag baa idaacadaha inta taga ka hadlaya jaraa'idada ka hadlaya dibadaha ka hadlaya ku dhaliilaya dawladii wax qabad xumo iyo wax qabad la'aan iyo horumar la'aan iyo musuqmaasuq iyo ku dhaliilaya nin walba oo jaahilaba markuu inta maqlo
halkiisu ka dhiiran dhaansanaya waxaa loo baahan yahay marka ciidanku inuu waddankiisa gaajo ugu dhinto inuu ciidanku ugu dhinto waryaa masar maalintii lagu soo duulay markabka reer yurub oo dhan ay 10 sano ka shaqaynayeen kusoo duuleen ay doonayeen inay 20 sano kula dagaalamaan dalka masar ku qabsadaan hal wiil oo askari oo masar ayaa badbaadiyay diyaarad inta fuulay masar wana fariiro soo wada isugu shubay inaguna maanta ciidamadeena nin mucaarada warkii inta maqlaan ee farmada soo banaynayaan oo dhufaysadii ka soo baxayaan looma baahna waxaas ciidan qabiilna looma baahna ciidanku waa inuu ciidan qabiil ka madax banaan ciidan qaran noqdaa waa inuu dawladdiisa ku kalsoonaadaa waa inuu ku kalsoonaadaa dalkiisa waa inuu gaajo ugu dhintaa amisom dalku xoreyn mayso maraykan dalku xoreyn maayo turki dalku xoreyn maayo dalkaaga adaa iskale taasaan adeer marka ugu baaqayaa ciidamada dawladda Soomaaliya ilaahayna ha garansiiyo wanaagga ma garanto waa tahay bal sidee looga gudbi karaa xaaladaha amni xumo ee muqdisho iyadu ka taagan waxaa looga gudbi karaa gabadha fooleyda iyo madaxweynaha inta ka dhaxla markii loo guntado in dalka amnigiisa la sugo madaxweynuhu ma aha caalimul qeyb ra'iisul wasaaruhu caalimul qeyb ma askarigu caalimul qeyb ma garan karo meesha soo socda waxaa la og yahay ninka wax xumaynaya inuu xaafid degan yahay magaalada kamid inuu ka soo baxay kama imanayo dibadda samadana kama soo dhacay waxaa la og yahay oo xaqiiqo ah oo hadal ka jirin in ninka hagaya uu magaalada ku jiro ninka uu ilaalinaya inuu magaalada ku jiro in xafiisyada joogo waa xaqiiqtaas markii kaa laga tirasilay ee aynu ogaano inaan waxaan naga baxaya dhibkan dhacaya inuu annaga inagu dhacaya markaan ogaano markaasaynu adeer yaan ka bixi karnaa oo midnimo iyo wada shaqayn iyo walaalnimo la isugu yimaado laakiin daacad la-aan markay dhacdo markii ku xume ay timaado markii dawladda ku mijaxaad ay timaado markay timaado maxaa iga galay wixii baaya nabadna dhici mayso amnina dhici maayo dawladna socon mayso dadkana sidaasuu wax dhintay iyo wax qarxiyo wax qabaado u noqonaya ma garataadeen waan gartay ugu dambeyn maxaad baaqo u jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyagu dawladda ka soo horjeeda oo naftirkooda lagu eedeynayo in xaaladda dalka ay hurinayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa oo farayaa ilaahay inta ka cabsataan dhibka idinku dhacaya maanta isbitaalada dalka ku yaala magaalada Muqdisho ku yaala waxa ka socda haddaad aragto yaabaysaa shacabka Soomaaliyeed haysta waxaas oo dhan waxa uu ku dhacayaana waa shacabka Soomaaliyeed waxaad yeelaysaan dawladdiina raaca la shaqeeya amniga idinka sugu kare shacabka Soomaaliyeed oo amniga sug ya wiil yar oo maskaxda laga xaday yuu ku haleynina dawladdiina raaca waxaa taa uga baaqaya oo leeyahay madaxda Soomaaliyeed shacabka soo jiita shacabka tusa walaalnimo shacabka tusa jileec albaabada ha ka xiranina xafiisyada ha ka xiranina ilaahay baa idin arkaya idinkula dhacda midda kale shacabka aan ku noqdeen waxaad ogaataa nimanka maanta xukuumadda haya beri hadday ka tagaan nin waliba dal shisheeyu ka yimid oo uu aadaya kuwii hore ka tegay ee xukunka ay kala wareegeenna ma joogaan waa ogtiin mid walba dal shisheeyu caruurtiisa iyo reerkiisa iyo naftiisa geystay waxa dhimanaya ee qarxaya ee miina la tegayso ee xabadi la tegayso waa shacabka oo iskaga kaca fadhiga dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina daafacda Soomaalinimo iyo midnimana wax lagu heli karaayo qabiil iyo kala tag iyo kafaraarq wax lagu heli karee walaalayaal shacabka Soomaaliyeed wax ka dhiibiya ceebta iyo dhagxumada idin haysata ka dhiibiya oo wadankiini la qaatay oo dalkiini la qaatay oo diintiini la qaatay ka dhiibiya saasaan kula talinayaa ayaga